السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتي وإذا وضع سلامي أصحابتا ميل كستو آد شوكتان فرينديس إيه فاميلي با ما شاء الله انتي اتقاني واتقانا انت كلنا مقعي وإكران سو دوادا ميل كستو آد شوكتان ما شاء الله كليب كان يروحان أقول تلقلي ولا لوينكي inta jecel inay maxay hayto isbedel qurux badan iyo maxay hayto caafimaad qurux badan ay higsadaan maasha allah tabaarakallah marka aad doonayso inaad wax samayso qof ahaan bay ka timaadaa aday kaa imanaysaa waxaas marka aad samaysid ee aad wadid waxaad gaadhaysaa guushaada maasha allah waxaan uga jeedaa anigaygan idinla hadlayaaba macnihii guusha aan gaadhay amba caafimaadka ilaahay isiiyey amba waxyaalahaas oo dhan waxay ku yimaadeen ficil uun aan sameeyey maasha allah taas inaa wax badan ka fahmi weydaan baa dhici karta marka inaan si fiican idinku jeexo weeyaan maasha allah anigu 2 sano ka hor waxaan ahaa qof aad caafimaadkiisa u liito qof aad u farweydu ah qof isteelkiisa aan ku faraxsanayn qof markastana dhakhtarka saaxiib la ah taas anigu meesha layga haysta markaas ma aan garanaynin gadaal baan ka ogaan doonaa insha allah qofkuna marka uu is ogaado waxyaalahaasi meesha ay uga yimaadeen xalkeeda wuu gaari karaa go-aankana wuu qaadan karaa alxamdulilah waxyaalahaas oo dhan go-aan baan ka qaatay markaa iyo talo wanaagsan oo laysiiyey kabacdi waan ku faa'iiday alxamdulilah caafimaadkaygii baa toban noqday ilaahay ha isiyaadiyo isteelkaygii baa ii qurux batay sheebkaygii baa ii qurux batay maasha allah wax kastaaba sidii aan doonayay ay iigu shaqeeyeen marka isaas wax kugu shaqeeyaan ma aha inaad adigu uun aad maxay hayto isku koobtid laakiin waxaa loo baahan yahay inaad uga faa'iidaysid dadkaada amba communitygaada waxaa laga yaabaa waxyaalaha aad ka cabanaysay amba waxyaalaha aad dareemaysay dad badan oo dareemaya inay jiraan laakiin meelay u raacaan iyo meelay wixii ka qabtaan toona aan garanaynin maasha allah aabba iyo hooyo iyo dhammaan dee dadka waaweyn intaba waxyaalaha aan sheegaya waa waxyaalo khaas u ah caajis fara badan daal fara badan qitaan fara badan awood darro fara badan miisaankooda kor u kacaya miisaankooda mar dhacaya iyaga oo haddana dee wax cunayo oo aan lalahayn maanta baahi baa jirta haddana nafaqa darra inay ka muuqato indhamadoobaad imanayo dhiigooda ka dhacayo nafaqadii loogu baahnaa aanay markasta haysanin dhakhtarka marka ay tagaana tala yaro guud uun la siinayo laakiin xitaa asliyan waxa ay u baahan yihiin marka ay rabaan aan loo tilmaamaynin dhakhtarkuna ma aha inay xaasidnimo ka tahay laakiin shaqadiisa gaarka ah waxyaalaha aad u baahan tahay inaanu toosba kuu tusinba ee uu isagu ku hormariyo markaa wixii aad ka qaadanaysay amba wixii aad ka fahantay adiga ayay ku jirtaa because isaga shaqadiisa maaha isaga shaqadiisa uun wixii xanuunsanaya markaas sirkiisa inuu dee wixii uu ka yaqaana ka qabta un weeye laakiin qof dhibaatadaas iska haysato oo iskala nooshahay macnii cilladahaasi meelaha ay kaga imanayaan inta badan kama joojiyaan anigaygan idinla hadlaya ikraan ahaan igamay joojinayn laakiin markasta talada laysiiyaa un waxay ahayd ikraan biyo cab ikraan socod fara badan samee ikraan cuntadaada control hadda waxyaalahaasna marka uu saa igu lahaa uma arkayna wax muhiim ah amba wax aniga wax iga qaban karaa amba wax aniga wax iga bedeli karaa runtii ma aan moodaynin laakiin xaqiiqada markii dambe aan arkay talada ugu qurux badan buu siinayay biyuhu waa waxyaalaha fictidka ee jirkaada u baahan yahay markasta inaad cabtid waxyaalaha wasaqda iyo waxyaalahaas oo jirkaada ka safaynaya caafimaadkaadana ku jira sida keliyaha wadnaha waxyaalahaas oo dhan waxay u baahan yihiin inay markasta helaan biyo marka lagu leeyahay socodkaasi wuxuu ka turjumayaa in xubnahaadu aanay shaqadii ay qabanayeen aanay qabin ee markasta intay ahaayeen ay kasii fiicnaadaan
marka lagu leeyahay cuntadaada kantarool waxa loo baahan yahay inaanad overweightna noqon dhoonna aanad noqonin ee aad meel dhexe aad timaado si macnii maxay ahaytoy aad uga raysato waxyaalaha carqabadaha ay markaa ku haysta jirkaada aad meel dhexdhexaada aad u timaado fikradahaas oo dhan waa fikrada aad iyo aad u fiican laakiin ma ogsoonahay horta mise ma ogsoonin aniga iska soo qaadaya anigu ma ogsoonin inay waxyaalahaas oo dhan uu ii sheegay in wax ka jiraan ma aan moodeynin anoo cadhaysan oo madoobaan kasoo bixi jiray marka ay weydiiyaan sida odaygayga caruurtayda ay weydiiyaan dhakhtarkii muxuu kasoo yidhina hooy biyo cab uunbuu dhahay biyo cabna ma soconaysa uun baan odhan jiray biyuba waxa ugu fiktitan ee jirkaygu rabo ayaan ogaaday inay tahay marka fikrad xun ayaan ka aaminsanaa mana fiicna wixii lagu yidhaahda qaada bal inaad tijaabisa aada u qurux badan iminka biyo cabna dee anaaba dadka u sheega miisaankaada iyo maxay haytooyeen overweightkaa tahay xakameena anigaa dadka iminka ka caawiya jimicsi samee boqolkiiba 25 amba 20 intii aad jeceshahay jimicsi samee amba exercise samee jirkaada si uu maxay ahaytoy u qurux badnaado oo xubin kastaaba shaqadeeda aanay u gabin aniga ayaa dadka kula taliya maxay ahaytoy maasha allah waxaasoo dhan waxyaalaha aan soo bartay uunba iga caawiyey ee dee anigan idin lahaa amba ma aan aqoonin alcamuun dad badan oo maxay ahaytoy waxyaalahaasoo dhan carqabadi ka haysataa jirta marka systemka aad uga gudbi kartaa un waxay tahay inaad wixii uun fahansan tahay inaad waxyaalaha aad cunaysana waxyaalaha ku kala jira amba waxyaalaha jirkaada ka heliyo aad dareensan tahay taasaa muhiima akhriska markaad wax soo iibsanaysid inaad wixii iska akhrido waxyaalaha aad ka helayso jirkaadu maalintii inta uu u baahan yahay xadid kasta inaad fahmaysid baa fiican haddii kale oo aanad fahmi karaynin waxaa kugu iman kara waxyaalo fara badan xanuuno badanna halis baad u noqon kartaa because xanuunada anigu dhakhtar ma ihi oo xanuunada dee dawadooda ma garanayo laakiin wax kasta dee marxalad loo raacaanba marxalad lagaga badbaadi karay leeyihiin marka soomaalida waxay tiraahdaa meel baydhsan seexo waxaasahay wixii imka maamaada way iga maqantay ilaahay ku badbaadiyo tolmi ahay meel baydhsan seexo maxani wax kastaaba badbaadada ilaahay baa haya laakiin waxaan uga jeedaa adigu inaad marin habboon amba meel marxaladaada ku qurux badan inaad markasta adigu aad isgeyso ayaa fiican alxamdulilah qofkuna uu caafimaadkiisa iyo isteelkiisa iyo wuxuu jirkiisa u baahan yahay markasta ka warhayn uu ku sameeyo aad bay qurux badan tahay waxyaalaha haddii aanu baranin amba aanu aqoon badan u lahayna maxay ahaytoy aad dadka walaaladaaya intaa idiin soo gudbinaya amba idinla wadaagaya inaad kala xidhiidhid amba kala tashatid amba sidii aad uga gudbi lahayd aad falowada qabatid maasha allah tabaaraka allah waxaan idinku boorinayaa maxay ahaytoy ka qayb gala xilliyada qabowga iminka xilliga qabowga lagu jiro waa xilliga dadku jimicsigana ay ka wahsadaan overweightna ay sii noqdaan caaska ugu badan iyo wahabka ugu badanna uu koro marka waxaan leeyahay si ahaanba maamooyinka aniga oo kale ah inaad jirkiina isu dheeli tirtaan nafaqaysaan wax ka bedeshaan exercise samaysaan burigiina aa qurxisaan miisaanka markasta iskala dagaalantaan xakamaysaan xal u heshaan haddii intaba aad diyaar u tihiin waa wax fudud oo aad samayn kartid meelaha aad ka heli kartana maxay ahaytoy waa si fudud baad u heli karaysaa oo markasta aniga iyo dad kale oo soomaaliyeed oo waxyaalaha ka hadlayaba waa arki kartaan waana weydiisan kartaan caawimo amba sidii aa carqabada uga gudbi lahaydeen maasha allah sidaan aniguba naftayda ugu soo guuleystay quruxdeeda iyo istiilkeeda iyo caafimaadkeeda adigana waxba kaama xigaan inaad ku guuleysato isku day inaad sanadka cusub ka qayb gashan haddii ilaahay ku gaadhsiiyo isku day ikraan ahaan challenge cusub aan bilaabay bishii 11 imika wuu socdaa
intii kasoo qayb galaysa doonaysa inay horumar iyo qurux iyo isteel qurux badan iyo bal inay maxay aheeto waxyaalo badan ay soo kordhiyaan ku hamiyeysa intaba diyaar baan ahay waana ka caawinayaa maasha allah haddii ilaahay raalli ka noqdo sanadkii cusba sanadkii hore halka kuugu dhashay cusubina inuu kuugu dhasho waa laga qurux badan yahay hore uga socotaa qurux badan inaad horumar samaysaa qurux badan amba naftaada ha ahaatee isteelkaada iyo quruxdaada iyo caafimaadkaada iyo sheebkaada aad ka talinayso amba mid adiga ku abadya maxay ahayd mustaqbal iyo higsigaada nololeed halka uu kuugu wajahan yahay oo aad hore usii kabto amba usii qaada ha ahaato maasha allah intaba inaad dadaalkeeda la timaado isku day waqtigu waa maruu kaa faa'iidaystay maraad ka faa'iidaysato ilaahay naga dhigo dadka waqtigooda ka faa'iidaysta sida waxana uga faa'iidaysta mid if iyo mid aakhiraba walaalahayga i daawan doona waxaan leeyahay maasha allah waa idin soo dhaweynaya anigu wax kasta oo maxay ahayd bulshada anigu aan ka caawiyo qof kasta wax iga soo weydiiya amba rag ahaado amba dumar ahaado gacmo furan baan ku soo dhaweynaya maasha allah soo dhawaada baan leeyahay inta facebooka friendiskayga la ah inta youtube-kayga ku xiran soomaali samawade intaba waan soo dhaweynayaa insha allah sanadka cusubna waxaa inoo ballama challengegeenu inuu intaa kasii xoog bato insha allah bilaha inagu soo foodle haddii allaha awoodda leh idmana aynu challengegeena guulo qurux badan ka gaadhno horumar qurux badanna ku tallaabsano insha allah intii doonaysa inay kasoo qayb gasho facebookayga maxay ahayd way kala soo xiriiri kartaa messengerka telefoonkayga facebook ayaa ka heli kartaan maasha allah whatsapp buu leeyahay intaba waan soo dhaweynayaa qaybta youtube-ka ay kala soo xiriiri kartaan message soo diri kartaan insha allah tabaaraka allah rajo wanaagsan future qurux badan caafimaad wanaagsan ayaan inoo weydiinaya allaha awoodda leh intaasaan kusoo khatimayaa kiliibkayga assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa inoo ballana isjeclaan iyo inaynu iscaawino meel kasto aynu joogno insha allah qof kastaaba wuxuu qofka kale ku dhaamo thank you baan idin leeyahay saa ii daawanaysaan iyo sida ii daawan doontaanba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu